kulanti waxaan akhyaaray dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Tani waa khariirada caalamka waxaana indhaheennu ay qabanayaan in oogada dhulka ay tahay mid ay buuxdhaafiyeen wadamo ay ku nool yihiin qowmiyada kala duwan. Waqti xaadirkan waxaa adduunyada ka jira ilaa 195 wadan oo midba midka kale uu ood wadaag la yahay. Xataa badaha adduunyadu waa kuwa u kala qaybsan wadamadaasi marka laga tago badda caalamiga. Waxay u muuqataa in aanay jirin meel kale oo la tegi karo marka laga tago badaha caalamiga si aad uga fogaato dhul la sheegto. Haddii aad ku eegto diirad soo dhawaysa waxa kuu soo baxaysa in ay jiraan ilaa ku dhawaad 1% oo oogada dhulka ah inay tahay mid aan cidna sheegan ama dalna aan lahaanshihiisa ku murmi karin. Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato dhulka Afrika ku yaala ee aan cidna rabin, dhamayso fiidiyowgan. Dhulalkani waa qaar ka baxsan mulkiyadda aadamaha kuwaasi oo waqti xaadirkan aad booqan karto umana baahna wax fiisa ah ama wax dalku gal ah gabi ahaanba. Si kastaba ha ahaatee inta badan dhulkan aan la sheegan waxa ay ku yaalaan dhinaca koonfureed ee dunida amaba Antarctica waxaana loo yaqaanaa Mary Bedland. Waana dhulka uu xajmigiisu leegyahay dalka Mongolia. Buuraha barafka iyo qabowgiisa xad-dhaafka ah ayaa loo aaneyn karaa inaanay cidina danaynaynin dhulkaasi si la mid ah dhulka cidhifka koonfureed ee dunida. In ka badan 99% dhulka aan aadamuhu sheegan waxa uu ku yaalaa halkan, iyadoo ay adag tahay booqashadiisu sababo jira aawadeed, iyo weliba iyada oo dhulkaasi la daafuray 2 qarni ka hor oo aan wax badan laga ogeyn. Dhulka kale aan cidna lahayn iyo qaaradda uu ku yaallo ayaa dhinaca kale ah mid aad u xiiso badan. Mid ka mid ah ayaa waxa uu ku yaalaa qaaradda Afrika. Laga yaabaa inaad arrinkan la yaaban tahay sida ay macquulka ku noqon karto Afrika oo aynu wada ognahay in dhibaatooyinka ugu badani ay yihiin kuwa salka ku haya xuduudaha u dhaxeeya dalalka iyo suurtagalnimada jiritaanka dhul aan cidna sheegan. Waxa uu ku yaalaa halkan waxaana loogu yeedhaa Biirtawiil ama Biirdawiil. Dhinaca waqooyi waxa ka xiga Masar oo shacbigeeda lagu qiyaasay in ka badan 102 milyan oo ruux. Dhanka kale ee koonfurna waxa kaga beegan Suudaan oo hooy u ah 43 milyan oo ruux. Midna ma sheegto mana raba dhulkan, mana jiro cid ku nool dhulkan oo xajmigiisu leeyahay wadanka Luxembourg ee qaaradda Yurub. Ma jiraan wax horumar nololeed ah oo halkan ka jira sida wadooyin iyo magaalooyin la degan yahay. Waa sida Luxembourg oo maran oo kaliya aad ka heli karto dhagaxaan iyo carrada istultuulan. Ma jiraan wax sharci dal kale ah oo ku qabanaya, sidaas daraadeed waxaad samayn kartaa wax aad doonto xataa haddii aad damacdo in aad ka dhigato wadan aad leedahay, sida tallaabadaasi ay hore u sameeyeen dad kale oo adiga ka horeeyay. 2014 in Mareykan ah oo ku nool magaalada Virginia ayaa ku dhawaaqay dowladda waqooyiga Suudaan isagoo ka taagay calan ay sameeyeen carruurtiisu. Bilayar kadibna dhalinyaro Raashiyaan ah ayaa ka qotomiyay calanka Raashiya iyaga oo markaasi kaga dhawaaqay boqortooyada bartamaha dunida. 2017 nin Hindi ah ayaa ku sheegay in ay tahay boqortooyadiisa Dixit isagoo ugu magac daray magaca awowyaashii. Waxaanu samaystay calan u gooni ah. 3 nin ee midba gooni u sheegtay Biirdawiil xataa waxay iska weerareen dhanka Twitterka. Iyadoo ay taasi jirto haddana kama horjoogsan inay arladani booqdaan 10,000 oo ruux. Xataa adiga kama xarimayso inaad magac ula baxdo boqortooyadaada adigoo kommentiga isticmaalaya. Waa mandaqad ay cid walba sheegan karto, laakiin waa arla qalalan oo ku dhex taala bartamaha lama degaanka Saxaraha. Si aad u xoojiso sheegashadaadana waxaad u baahan tahay adeegyada aasaasiga iyo baahiyaha nolosha iyo sidoo kale dad aad xukunto. Haddaba su'aasha aynu isweydiinayna ayaa waxay tahay sababta dhulkan baaxadda leh ee aan cidna sheegan uga jiri karo qaaradda Afrika. Si aynu su'aashaasi uga jawaabno waa inaynu dib ugu noqonno 2 qarni ka hor iyo dowladda Ingiriiska. Horaantii qarnigii 19aad Masar waxay ku hoos jirtay xukunkii Cusmaaniyiinta, laakiin waxay ahaayeen kuwo u madax bannaan arrimahooda gudaha, sida inay weeraraan qabiiladii Suudaaniyiinta iyaga oo markaasi wax amar ah ka sugin saldanadii Cusmaaniyiinta ilaa ay Masaaridu qabsadeen oo xukumeen inta badan ee Suudaan. Iyadoo geesta kalena ay Suudaan gudaheeda ka samaysmeen jabhado iska soo horjeeda 1870aadkii. Waxay ahayd bilowgii badhaadhaha Masar ee gacanta laga qaaday marinbiyoodka Suez Canal 17 Noofembar 1869. Dhammaan shacabka Masaaridu waxay ahaayeen kuwo gowstambeedka ka qoslaya oo dareensan muhiimadda gacanbiyoodkan iyo saameynta uu dalkooda ku yeelan doono caalamka intiisa kale. Dowladda Ingiriiska
ayaa isla markiiba dareentay faa'iidada Suez Canal oo aad u soo gaabiyey safarro muddo dheer qaadan jiray isla mar ahaantaasina badbaadiyey hanti badan oo kaga bixi jirtay safarrada ka imanaya India ilaa iyo qaaradda Yurub waxaana marba marka ka dambaysa sii xoogaysanayay danaheeda istiraatiijiyadeed ee ku aadan Egypt ama Masar 1882 ciidamadii boqortooyada Ingiriisku waxay gudaha u galeen oo qabsadeen dhammaanba dhulka Masaarida waxaanay si toos ah u hoos gashay xukunkii Ingiriiska si ay haddaba dowladda Ingiriisku dhidabada ugu aasto xukunkeeda waxa sidoo kale ay dagaal la gashay maleeshiyaadkii Suudaaniyiinta ahaa ee ka soo horjeeday xukunka Masaarida arrinkaasi oo markii dambe isku bedelay dagaal daba dheeraaday oo u dhaxeeya Ingiriiska iyo maleeshiyaad xorriyadoon ah oo Masaari iyo Suudaaniyiin ah kaas oo farta dhiigga la isku daray muddo 18 sannadooda ilaa aakhirkii 1898 askartii Ingiriisku ay adeegsadeen hub culus oo ay cagta mariyeen maleeshiyaadkii ka soo horjeeday waxaana u suura gashay in ay si buuxda gacanta ugu dhigaan Masar iyo sidoo kale Suudaan labadaba muddo kadibna dowladda Ingiriisku waxay go'aansatay in ay samayso xuduud u dhaxaysa labada dal ee Masar iyo Suudaan iyagoo xariiq toosan oo ku gudban 22 parallel ay ku kala badheen dad reer guuraa iyo xoolo dhaqataa waxaanu xariiqaasi dhulkan oo ay Masaaridu munaafacadsanaysay raaciyey Suudaan halka dhulkan oo ay deganaayeen dad dhaqan ahaan Suudaaniyiin ah uu ku daray Masar iyadoo aakhirkiina mustacmaradii Ingiriisku ay yaqiinsantay in ay lagama maarmaan tahay in dib loogu noqdo samaynta xad cusub 1902 ayaa uu dib u macmalay xad cusub isagoo u eegaya deegaanka iyo dhaqanka dadka waxaanu biirdawiil ku daray Masar halka dhulkii weynaa ee saddexagalka loogu yeedho Xalaayib mulkiyadeeda uu gacanta u geliyey Suudaan qarnigii 19aad waxaa Afrika ku soo dhacday dabayshii xorriyadoonka iyo dhammaadkii gumaystaha 1954 heshiiskii ay wada galeen Masar iyo UK waxaa qalinka lagu duugay in Suudaan ay xorriyadeeda qaadato 1 January 1956 xorriyaddii kadibna waxaa soo ifbaxday qaraxa miinooyinkii uu aasay Ingiriisku waxaana markiiba la isku afgaran waayey xuduudka saxda ah ee la isla qaadan lahaa Masaaridu waxay ku dooday xuduudkii 1899 ee Xalaayib ku darayay dhulkeeda isla markaana biirdawiil siinayay Suudaan halka Suudaan iyaduna dhankeeda ay ku andacootay in xuduudka saxda ah uu yahay kii 1902 ee siinayay mulkiyadda Xalaayib haddii aynu si fiican u eegno maabka waxay noo soo baxaysaa sababta labada dalba ay u rabaan mulkiyadda Xalaayib waa dhul 10 jeer ka badan biirdawiil waana dhul deegaameed qurxoon halka biirdawiilna ay tahay arla madhan oo cidina aanay deganayn geesta kale Xalaayib waxay leedahay xeeb dheer oo kaabiga ku haysa badda cas muddo badan maamulada Masar iyo Suudaan waxay ahaayeen kuwo wadaaga xukunka Xalaayib halka biirdawiilna ay haawanaysay oo dalna aanu rabin Xalaayib ayaa noqotay mandaqad muhiimadeeda leh kadib 1992 markii laga helay gaasta dabiiciga ah xeebta badda cas ee ku teedsan deegaankaasi sidaasi daraaddeedna cid kasta oo yeelata mulkiyadda dhulkan waxay helaysaa khayraadka dabiiciga ah ee arladan ku duugan Suudaan iyo Masar midna kuma hursamayn in lala qaybsado khayraadkaasi waxaana Suudaan ay ka dulbooday Masar iyada oo dalbatay shirkad Kanadiyaan ah oo ka shaqaysa arrimaha bedroolka arrinkaasi oo Masar ay ka cadhootay ayaa sababay inay xoog kula wareegto Xalaayib 1996 Suudaan oo ka jawaabaysa arrinkan ayaa isku dayday howlgalkii dhicisoobay ee lagu khaarajinayay madaxweyne Xusni Mubaarak oo ku sugnaa dalka Itoobiya aakhirkiina Suudaan waxaa askarteedii ugu dambeysay ee ka soo daadguraysay Xalaayib sanadkii 2000 waxaana si buuxda gacanta ugu dhigay Masaarida ilaa iyo waqtiga xaadirkan waxaa la tilmaamaa in Masar ay gelisay deegaankaasi in ka badan $60 milyan oo ay ku horumarisay baahiyaha nolosha ugu dambeynna sanadkii 2019 waxaa si rasmi ah ula soo baxeen khayraadkii ku duugnaa oo ilaa iyo haatan ay iibgeeyaan Suudaan waxa ay tamarteedu noqotay cambaarayn waxaana weli ay sheeganayaan in Masar ay ka haysato dhul ay leeyihiin taasina waa sababta jiritaanka dhulkan biirdawiil ee aan cidina rabin xataa ma jiraan wax ciidan ah oo ku sugan arladaasi haddii mid ka mid ah uu qabsadana waxay ka dhigan tahay inuu haneeyey dhulka qaniga ah ee saddexagalka Xalaayib dhulka biirdawiil waa deegaan aanay dowlad iyo maamul toona ka jirin in ka badan 65 sano mana jiro dal kale oo sheegtay ama badanaynaya inuu la wareego dhulkaasi
barnaamijkeeni intaasi ayuu noogu egyahay intaynu mid lamida ku kulmi doono nabaday.